fadhigii saaka ee golaha gurtida Soomaaliland oo uu shir gudoominayay gudoomiyaha golahaasi mudane Saleebaan Maxamuud Aadan ayaa markii uu fadhigaasi furmay waxa uu gudoomiyuhu ku wargeliyay mudanayaasha in ay ka doodaan ajandaha kal fadhiga 78aad ee golahaasi. maanta waxaynu gelaynaa ajandihii muddo dheerna waa haysateen oo waa ka soo bogatay doodiisii baynu gelaynaa xogayntu ha qorto leeyahay arrimaha gudaha farqada ugu horeysa waxay leedahay arrimaha taagan in lagu daro arrimaha taagan in ajandaha lagu daro arrimaha gudaha farqada ugu horeysa laga dhigo arrimaha taagan oo ay ka mid tahay abaaruhu ka mid yihiin inuu doodeedii uga darno marka wixii arrimaha taagan iyo warbixinta guud ee nabadgelyada dalka oo kale inay xagga hore soo gasho arrimaha gudaha farqada intaasaan ku daray xagga dambe garsoorka marka laga hadlayo fulinta xukuumadda garsoorka ka soo baxaba qoran waxaan ku darayaa dabagalka iyo fulinta go'aamadii golahu soo saaray ee uu ka soo saaray meelo badan in iyadana ilaa ceelaf weyn laga soo bilaabo ilaa shidan ilaa ceeryaan iyadana inaynu halkaa fulinta garsoorka ku darno dabagalka iyo fulinta go'aamadii golaha taana halkaasaan ku daray farqada qodobka 9aad ee xog wareysiga mas'uuliyiinta qaranka waxaynu u baahannahay inaynu u yeelano oon ku darayaa wasiirka wasaaradda beeraha wasiirka deegaanka iyo wasiirka xanaanada xoolaha iyo kalluumaysiga maadaama oo isbeddello badan ay adduunyada ka jiraan lagana yaabo inay culaysyo badan oo cuntadeenna iyo waxaynu ay soo kordhiso si aynu wasaaradaha ku shaqada leh ku talagalka iyo qorshayaasha inooga soo aadan ku talagalka dhibaatooyinka soo socda aynu wax uga weydiino talooyinna aynu uga soo saari karno waxaan soo jeedinayaa wasiirka beeraha inaynu yeelano iyo wasiirka kalluumaysiga iyo xanaanada xoolaha iyo wasiirka wasaaradda deegaanka saddexdaana waxaan leeyahay ha lagu daro waxaan kaliya ku dari lahaa qodobka afraad nabadgelyada iyo horumarinteeda in dhaweyd waa ogeydeen gobolka Sool gacmo fara badan oo dhowr oo isku xigay wax idoo loo qabtay ma jirin waxaan ku dari lahaa qodob ah maxaa iska bedelay nabadgelyo daradii ka jirtay gobolka Sool waa in la helaa wixii dhacay in wuxuu laga helo baaristeedii ama raadinteedii haddii kale mar haddii kuwii horeba aan la helin dhowr casho kadibna haddana wax kale iska dhici kara marka waa in arrinkaas si feejigoon gobolkii loola xisaabtamaa oo aynu cid unan kala xisaabtanno la helo wasaaradda dakhliga kale kala hadalno guddiga nabadgelyada gobolka xataa aynu warbixin u diro marka intaasaan ku dari lahaa marka waxaan oran lahaa anigu wax walba ay ku dhayiin halkan inoogu khamiirsan yihiin waa inuu la kala bixbixi doonaa hadhowtoole haddii cid loo yeeriyo waan ku korsan karnaa haddii wax laga kaaftoomay qodobka ku jirto baa dooda lagu darayaa markaan waxaan oran lahaa sida aan ku ansixino islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ajandahan kal fadhiga 78aad gudida joogtada horta si wanaagsan ay uga soo shaqaysay anigu qodobkan isdul taagayaa waa qodobka waxbarashada waxa ku qoran tayeynta iyo kor qaadista dugsiyada dawliga ah iyo xogogaal noqoshada dugsiyada waxbarashada gaarka loo leeyahay anigu marka halka qodobkaas waxaan oran lahaa wasiirkii waxbarashada wasiirada loo yeeray lagu daro intaasoo baan ku korin lahaa dood dheer kadib waxa la ansixiyay ajandaha kal fadhiga 78aad ee golahaasi waxaanay u dhacday sida tan qodob baa halkan muhiimad moodaa inaa goluu soo qaaday mid waxa weeye go'aamadii la qabtay howlgalkeennii wixii go'aamaha fulintoodii in la fuliyo wixii go'aamaha oo aynu dabagalno sidii ay ku fuli lahaayeen kolay kaba marna qoladii bari ka timi inay halkaa bogaadinan waadaydu ku bogaadinayn
kow ta kalena waxa weeye arrimaha taagan waayahay labadaa markaynu ku darro inaynu sidaa ku sii dayno ku ansixinno intii ogolay gacanta inta diiday waayahay 52 baynu ku fadhinaa 50 waa ogolaatay midna waa aamusay anna ma codaynin saasay ku ansaxsan yihiin wabilaahi tawfiiq